kulanti wacan daawadayaal dhamaantiinba xog goor dhawata isoo gaartay oo ah war degdeg ah oo fariin ah ayaan idin wadaa in aan idin la wadaago iyo jinsiyadaha dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo USCIS ayaa waxa ay bilowday in dadka sharci sugayaasha ah ee Soomaalida ah ee dhalinyarada gaar ahaan kuwii darbiga ka soo booday ah ee ku sugan gobolada Minnesota iyo sidoo kale Ohio ay markaasi u dirto ballamo degdeg ah oo aanan horay loo sii saadaalinaynin horayna aanan loo ogeyn kuwaasi oo dhici doona asbuuca soo socda. Ballamahan ayaa waxa la soo diray asbuuca nagu soo aadan ee 17 18 ilaa 19 bisha ay tahay ayada oo dhalinyarada loo soo gelinayo ballamaha maxkamadaha iyo keesaskooda in la dhageystana ay yihiin kuwa keesaskooda horay loo soo dhageystay qaarkood go'aamo sugayay kuwa aanan wali la gudagelin dhageysiga dacwadahooda oo isla markaasi sanadka soo socda ama kan xiga ay ahayd iyo sidoo kale kuwa aan horay ballamaba u haysaninba. Dadkan ma ahan dad horay u sugayay sida aan sheegayba ballamaha maxkamadaha xiliyadan waxaana qaarkood ay markaasi marayeen maxkamadaha xilli dacwooyinkooda ay yihiin pending amaba aan laga soo jawaabin wali. haddaba ballamahan cusub ayaa dadka loo soo diray waxa ay yihiin dadkii wadankan Mareykanka soo galay wixii ka dambeeyay 2023 ayada oo sidoo kale tana dadkan dhalinyarada u badan ee ballamahan loo soo diray qaarkood aysan lahayn wax maxkamada sida aan horay u soo sheegayba. Waxa jirto sida la sheegay in looyarada dhalinyaradan ay ku xiran yihiin ay aad iyo aad xafiisyadooda u buuxaan mashquulna u yihiin toddobaadka soo socdo sababo la xiriira ayada oo 30 dhalinyaro ah ama 20 dhalinyaro ah ama 10 iyo wixii ka badan ah looyarkiiba loo soo diray goboladaasi si markaasi taasoo markaasi adkeynaysa in qofka looyarka ama sharci yaqaanka ah uu raaci karo dhalinyarada maadaama ay ka badanayaan tirada 10 ama 20 ama 30 waa sida ay qareenada qaarkood ii sheegeen. si haddaba wax badan aan arintan uga ogaado waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota qareen sharci yaqaan ninka wada taqaanaan Amin Harun ayaa waxa uu sheegay sidaas si lamid ah inay jirto in ballamaha loo qabtay dhalinyaradan muddo isku waqti ah hal saac gudahood laga yaabay 17 bisha in hal looyar 10 qof ama 20 qof ama 30 qof ku dhawaad asaga uu hayay in kiisaskooda maxkamad looga wada yeeray taasi oo adkeynaysa xataa sharci yaqaanadu in ay wada raaci karaan dhalinyaradan si markaasi kiisaskooda ay wax uga soo dhageystaan ama ay ula socdaan. wuxuu ii sheegay Amin Harun in xiliyadan waqtigan ay tahay xilli adag waqtiga ay ku soo aadayso arintan dhinaca kale firaaqaduna ay aad u adag tahay. keesaskan haddaba maxaa keenay in xilligan dadkooda loo yeero maxaa ka dhiga dadka Soomaalida ah dadka ugu badan ee loo yeerayo waqtigan oo maxkamadaha laga ballaminayo. haddaba arintan ma caddo hase yeeshee qaar kamid ah xataa dhalinyarada soo galootiga ee Soomaalida ah ayaa ilaa iyo shalay iyo xalay waxay ii soo dirayeen qaar badan oo kamid ah fariimo waxayna ii sheegeen in qaarkood xataa halkan jooga ii sheegeen in ay jirto in markaasi ayaga laftirkooda la kala dooransiiyay laba arrimood oo kala ah in ay sameeyaan self deportation wax la dhaho oo ayaga kiiskooda ayadoo uu sadhamaanin go'aanna aan laga gaarin ay dib ugu noqdaan Afrika wadanka Uganda ay tagaan halkaas kiisaskooda laga soo process gareeyo go'aanna halkaas looga gaaro halka kuwa kale tana la yiri hadaad rabin taas waad sugi kartaa markii kiiska go'aan laga gaarana waxa dib lagu masaafurnaya wadankaagi. waxa jirta haddaba warar kale oo soo dhacaya ayaguna oo ku saleysan in dawladda Mareykanka heshiiskii hore ee ula gashay wadamada Ecuador, Honduras iyo sidoo kale Uganda ee la xiriiray dadyooga soo galootiga ah in halkaasi kiisaskooda loo rarayo ay dhinaca kale jirto arrinkaasi. waana taas sababta tiro aad u badan oo dhalinyaro ah oo ku sugan gobolada Minnesota iyo Columbus Ohio boqolaal dhalinyaro ayaa ku sugan loogu yeeray intooda badan maxkamadana loo soo galiyay in ay yimaadaan si markaasi maxkamadda dacwadooda loo dhageysto. wararka qaar waxay sheegayaan inay labada arrimood xiriir leeyihiin oo hadii ay noqoto arrinkan ku saleysan in dadkan dib loogu qaado wadamadaasi laguna soo dhageysto dacwadahooda halkaas hadii la ogolaadana halkan la keeno ay jirto halka dadka qaarkoodna ay leeyihiin waxa arrintan ku xigta oo hoose ka jirta
in dadkan masaafurin loo diyaarinayo. haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada gudaha dalkan Mareykanka ee Soomaalida laga soo doorto goboladaasi Maxamuud Nuur oo kaleeto ayaa xalayto waxa uu soo saaray asna war saxaafadeed mudanahaasi laga soo doorto magaalada Minneapolis ee ku jira baarlamaanka gobolkaasi Minnesota in dhalinyaradu ay sadhayalsan arintan oo hadii loo yeero aysan iska aadin ayagoo aanan wax loo yeero awoodanin maxkamadahan. sidoo kale waxa uu sheegay in aysan iska hadlin oo waxay doonaan aysan ku hadlin hadii maxkamad ay u yeerto amaba sharci markaasi lala tiigsanayo ama la rabo in la celiyo ama wax loo soo bandhigo heshiisa noocay doontaba ha noqotee. daba arrinkan waxa jirta dhowr arrimood oo kala gedisan oo ku laran sida aan sheegayba hadii ay noqoto qabqabashadii dadka ku dhawaad waxaad ogtihiin 400 oo kun sanadkaas Mareykanka uu joogo madaxweyne Donald Trump xukunkiisa in la qabqabtay sida hay'adda Homeland Security ay sheegtay dad badan dib loo celiyo oo la masaafuriyay halka kuwa kale tan xabsiyada haatan ay buux dhaafiyeen gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee lagu soo qabqabtay howlgallada ICE ee ka sameynayso gobollo kala gedisan oo dalka Mareykanka. kaliya hadaba ma aha Minnesota iyo Ohio ee sidoo kale tiro yar oo dadka Chicago ku sugan ayaa la ii sheegay in ayagana loo soo diray warqadahan degdega ah iyo ballamahan maxkamadeed ayadoo kiisaskooda wax go'aan oo horey looga gaaray uu si jirin isla markaasina loogu yeeray asbuuca soo socda in ay ballamahaasi ka soo qayb galaan. haddaba arintan waxa ay tahay sida aan sheegay mid dhowr waji leh oo maaragtay dhinac markii laga eego ku soo aadeysa xilli goboladan ay culeys saarnaayeen gaar ahaan madaxweyne Donald Trump uu sheegay dadyooga soo galootiga ah in wadankan dib looga masaafurin doono. lama ogo intan ay masaafurintii qayb ka tahay. sidoo kale tan lama ogo in dhalinyaradan sida guud hadiyo goor waxa jiri jirtay in qof walba ballantiisa waqti loo soo dhajiyo. waxa laga yaabaa laba qof oo wadankan soo wada gashay isku xilli in midna ballantiisa ay noqoto 2026 midna ay noqoto 2027 oo sanad dhan ay u dhaxayso. haddaba arintan degdega ah ayaa waxa ay tahay mid walaac dad badan ku abuurtay. qaar ka mid ah dhalinyaradii haddaba aan la hadlay ayaa waxa ka mid ahaa wiil ku sugan gobolkan Virginia toddobaadkii hore. sidan si lamid ayuu ii sheegay inkastoo magaciisa uu codsaday in aanan baahinin haddana xog badan ayuu ila wadaagay. wiilkaas wuxuu ii sheegay in Mareykanka markii uu tagay maxkamadda isla markaasina laga ballamiyay ay codsadeen in uu self deportation asaga iskiis uu aado dalka Uganda. hase yeeshee markaas waxa la socday sidoo ii sheegay qareenkiisa oo ku dooday in ninkan Uganda uusan wax badan ka aqoonin ehel uusan ku lahayn meel uu ku dagaay aysan jirin marka sidaas la aligeedna ay tani haatan ku adag tahay bini'aadanimana aysan ahayn qof magangaliyo weydiista Mareykanka oo Mareykanka ku sugan in dib loogu celiyo bariga Afrika gaar ahaan Uganda oo uusan ehel ku lahayn oo dhibaato ay ku qabsan karto. wiilkaasi mar kale maxkamadiisa ayaa dib loo dhigay go'aan iyadoo aanan laga gaarin. tanina dad badan waxa ay ka hadlayaan in ay saameyntaasi mid lamida ay leedahay. hase yeeshee si kastoo ay ahaataba waxa aan daba soconaa qaar ka mid ah looyarada iyo dadka u dooda xuquuqda dadyooga soo galootiga ee gobolka Minnesota jooga iyo sidoo kale gobolkaasi Ohio. nabadgelyo.